maamul dhisan oo isku aadan ayuu ahaa ha ahaadee gobolka Gedo uu kala qaybsan yahay hadda waxaana kala qaybiyay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda dhexe ayaana kala qaybisay runtii horta gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose Jubbaland sideeda dhan inay is wadato ayaan horta anigu jeclaa ha yeeshee waatan hadda sidaana haddaan si toos ah u sii guda galo arrinta waxaan anigu jeclaan lahaa in loo daayo gobolka maxaa la yiraahdaa gobolka Gedo doorashada Axmed Madoobe in loo daayo oo xildhibaanadiisii asagoo ay ismaamulaan ayaan anigu jeclaa waxa weeyaan waxa halkan ka haysta waa maamulka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan farmaajo haysta anigu waxaan wuxuu ku haystaa waxa weeyaan in uu asagu waxa weeyaan gobolka Gedo oo isxijiyo xildhibaanada isxijiyo wax walba isxijiyo maxaa la yiraahdaa aan wax dheexaba ku yeelan maamulka iyo awoodda wuxuu ka soo horjeedaa Axmed Madoobe halkaas sidaas ayuu u haystaa rumahantii anigu marnaba ma taageersani waxaan leeyahay farmaajo iyo dawladda federaalka Soomaaliya Jubbaland ayadaa ishaysatay ismaamuleysay gobolka Gedo waa in faraha lagala baxaa maamulka dhisan iyo madaxweynaha ka jira waa in uu maamulaa Jubbaland leesu daayo oo gobolka Gedo oo waxa weeyaan leesu daayo xildhibaanada Axmed Madoobe maamulka waxa weeyaan uu maamulo loo daayo haddii kale qalalaaso intaan tii ka soo dhacday in ka taagan inay ka dhacdo yaan laga talin waxaan anigu jeclaan lahaa sida xildhibaanada cid walba oo inay ismaamusho ayadaa ku wanaagsan Axmed Madoobe in arrinkiisa loo daayo xildhibaanada iyo waxa ka soo baxaya maxaa la yiraahdaa si nidaam ah korjoogta iska ahaato dawladdu mesela korjoog iska ahaato marka anigu marnaba ma aaminsani in gobolka Gedo waxa weeyaan lagula dhigo oo waxa weeyaan Jubbaland lagula dhigo kuraasta sidii beledweyne iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo ka soo dhacday ayuu rabaa farmaajo meel walba inay u noqoto Axmed Madoobena waa tii ay waxa weeyaan uu ka laqi waayay marnaba marka farmaajo waxaan dhihi lahaa niyahow Jubbaland maamul